inta badan waxaa sababa isqabad marka hore iyada oo awooduhu aanay kala cadayn tan labaad qaabkii 22 sano Soomaaliya loo soo maamulayay oo ahayd in awoodu ay ku koobnaato madaxweynaha oo ay dadka meesha yimaada oo arkaan inay sidii Maxamed Siyaad Barre kale ay u dhaqmaan taas ayaa marka ugu horeysa sababta iskhilaafka keenta waayo wixii ay ku heshiiyeen ama waxa qoraal ahaan ay isku waafaqsan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo baahan yahay inuu ku koobnaado waxa uu sharciga u ogol yahay halka mas'uuliyadda ay saaran tahay ra'iisul wasaaraha oo ah madaxa xukuumadda marka wixii oo dhan baa isku qasmay liin iyo caano taas ayaa keenta marka liin iyo caano isku daran waxa ka soo baxay waa la yaqaan Soomaalida way markasta oo la isqabto oo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ay isqabtaan dawladii ku meel gaarka ahaa sidaan arki jirnay tan ka horeey waxaan arki jirnay in shisheeye uu soo kala dhex galo oo labadooda ama mid la eriyo ama la heshiisiyo maxaa diidan in iyagu dhexdooda ay heshiiyaan Xasan Sheekh Maxamuud sidii kulliid waa la yaqaan mukhaabaraadka wadanka Qatar ayaa sameeyay oo $5 milyan soo siiyay $5 milyan ayuu madaxweyne ku noqday markii horeba nin la sameeyay ayuu ahaa marka maadaama uu $5 milyan oo wadanka Qatar ay bixisay madaxweyne ku noqday waliba aaminay waxa Soomaaliya la yiraahdo inay isaga tahay awood inay isaga tahay wuxuu magacaabay Saacid oo uu uga soo dhaxushay ragii kale oo dhan inuu yahay nin aan awood ku qabsanay ra'iisul wasaare Saacid waa nin qabow uu dulqaatay markii dambe waxa la yiri fadaxooyin badan oo dalka ka dhacay marka iska coach baa yiraahdaa ama kabashil fadaa wixii uu gaay Xasan Sheekh iyo kooxda ku xeeray dan jadiid fashilkii ku dhacay wixii uu dadka u sheegay dhammaan waa la waayay lixda qodob ee dalka u ahaa dawladnimada uu isticmaalay fashil ayuu ku dhamaatay waana ka wareynaa magaalada Muqdisho wadada Makka al-Mukarrama ilaa taangiyada iyo beebeeyada uu dhaxmara isaga waxa diwaardiyay waa la yaqaan halkii ninkii uu bedelay ee Shariifku meel ka liidatay jooga dhaqaalaha dalku meeshu marayo waa la ogyahay nidaamka dawliga ah uu kala daaf dastuurkii lagu heshiiyay waa la khalday ahaantii waxa soo degdegay fashil aan horay u soo marin dhammaan dadkii Soomaaliya soo maray oo madaxda laakiin waxaad moodaa ayaa kooxdan waqtaa inay mas'uuliyadda dusha uga saarto Saacid oo aan inta badan isagu wixii socday awood ku leeyahay xataa qaabilaadda wufuudda iyo wasiirada waddanka yimid madaxweynaha qaabili jiray Saacid inta badan ma qaabilin laakiin hawsha ammaanka ee aad leedahay madaxweynaha dusha u saarayso soo lama oran karo xukuumadda Saacid ka gaabisay maxaa yeelay asiga ra'iisul wasaarihi asiga wasaaradii gaashaandhigga iyo amniga iyo arrimaha gudaha hoos tagayaan inaanu amniga shaqo ku leeyahay Saacid waxa kamid ah taageerayaashiisa ayaa damcay inay mudaharaad ay ku taageersan yihiin sameeyaan waa loo diiday wasiirka arrimaha gudaha taliyaha nabad sugidda Bashiir Boobe taliyaha militariga taliyaha booliska inta way yiraahdeen ma sameyn karo marka in la eedeeyo Saacid waxaan u arkaa waa khalad haddii uu wax mas'uul ka yahay nimankaas u amrina marka wuxuu ahaa ninka maaragtay ugu fiican ee la shaqeyn karaya daacadda waa Xasan marka kooxda dam jadiid ee ku fashil tusaalaan gabadhii bangiga loo magacaabay $100 milyan baa lagu khastay wiilka waqtiga uu yahay rag madaxweynaha ka shaqeeya gabadhii hadaadan saxiixin iska jir taas gabadhii waxay keentay in baqayn dadka ugu xartay ay saxiixdo isagoo madaxweynuhu u muuqdaa la yiri saxiix madaxweynaha ku amraya haddii kale waxa la oranayaa shabaab baa ku dilay inta madax laga tago marka waa taran kartaa oo dalka ku sugan yahay ma saxiix way jeedeen markay jeedeen imaaraadka tagtiwaatay tacdiishay oo caalamku soo madhigtay nin shacab ayaa la yiri akoonkiisa ku shub lacag Soomaaliya u jiray $100 milyan oo dawladda waxay soo barakatay way caddahay fadeexadu marka amniga tusaale ahaan ra'iisul wasaaruhu dhaqaalaha dalka ma maamul wasiirka arrimaha gudaha wuxuu leeyahay budget toos ah oo ay kooxda dambiga wax ku xadaan oo malaayiin oo lacagta inta badan lagu qaato boqolkiiba 60 oo wasaaradda arrimaha gudaha ku dhacda waxa jira dalka dadka loo qabtay ma jirto marka waxa jira waa nooc aan dawlad ahayn sidii NGO u shaqeynaya marka fashilkaas dhacay oo dhan waxa la rabaa Saacid tusaale ahaan ra'iisul wasaaruhu isaga magacaabay wasiirada
wasiiradii soo tago cashil shir markuu u yar imaan waayo marka ma aha nin aan waxba gacanta ugu jirin la aadayo fashilka waxaa iska xasan sheekh iyo ragga ku xeeran ee dam jadiid laakiin ra-iisul wasaarihii haddii sidaa sheegaysa uu yahay nin qabow oo dhan mar loo jiidi karayo ma moodaa asiga qudhis inuu mas-uuliyaddiisa gabsan yahay marka run ahaantii dhibka jiraa wuxuu yahay ra-iisul wasaaruhu khadaad buu leeyahay waxay ahayd jubdidii horeba inuu yidhaahdo sidaan waxuma socdaan laakiin mar walba wuxuu ka caranayay khilaaf taas ayaa ku sababtay kooxda filan soomaaliya joogta inay siday doonaan dalkan u sameeyaan soomaaliya oo xilo kuma guulaysan karto inay awoodda dalka hantaan 6 qofna awoodda dowladnimada oo dam jadiida ma wada wadi karaan haddaan u noqono arrintii khilaafka su-aal aan horena kuu weydiiyey aad moodo inaad yaro gees martay maxaa u sabab markastoo madaxda sare ay isqabtaan in shisheeye keliya uu xaliyo dhibaatadaas waa dhibaato jirta oo muuqata waayo soomaaliya 22 sano ayay dowlad leedahay dadka soomaalida waxa u yaala khilaafka iyaga unba isu muuqda ee kuma ay xaliyaan wax danta guud ee dalka marka shisheeyaha unbay ka baqaan iyo danaha ay kala yihiin marka taasaa keenaysa in dalkan iyo dadka sidan u wadaabayar waa hagaag maxaad ku talin lahayd waxaan ku talin lahaa khilaafkan uu sii soconayaa waa bilowgii burburkii dowladda xasan sheekh iyo kooxda dam jadiid waan ognahay cabdiqaasim salaad xasan kooxda al-islaaxa wada jirta ayaa jirki jabuuti kusoo dhistay cabdullaahi yuusuf dowladdiisii waxay ku timid iyadoo garabkii la oran jiray SRC Ethiopia gacansaarka lalaha waa aragtay sheekh shariif oo isla mar kale mud kusoo yiri xoogaga islaamiyiinta iyo maxaakiimtii waa ogeyd in loo kala barbaray qayb isku kala dhabalatay halka ay ku dambeeyeen waad garan kartaa ilaa aala sheekh qayb kamid ay ka hor yimaadaan sheekh shariif haddana waxa weeye waa meedaanka ama garoonka kubadda cagta siyaasadeed ee dam jadiid oo ku dambeyn doona meeshii ay sheekh shariif xilka ugu wareejiyay meel kasii liidata ama waxaa laga yaabaa inayna gaarinba 12 iyo 14 oo madaxweyne xasan sheekh impeachment baarlamaanka ugu socdo xogaha badan oo jira si isagana meesha looga tuuray isaga Israa'iil markii dowladdan federaalka la aasaasay waxa beesha caalamka loogu yeero iyo saxaafad fara badan oo ama Soomaalidu leedahay mashayu leeyahay adeegsanayaan waxa la furay dacayad weyn oo ahayday in nimankan ay yihiin niman qayr Soomaaliya u wada horumar wada iyagoo kala aan la arag aqoon yahan ay yihiin iyo wixii lamida marka wixii la sheegay waxa iminka muuqda markaas barbar dhigto dacayadaas waxa sidinayay sirdoonka dowladda Qatar dowladda Qatar waa dowlad yar laakiin dhaqaale badan laakiin Qatar kaliya u saaran Mareykanka wata Xasan Sheekh Maxamuud sidaan la socono iyo dowlad kale oo shisheeya aan dhamaysto cid kasta wada cid un baa loo soo mariyay taasi waxay u xalgaday waayo Xasan Sheekh iyo kooxda dam jadiid garashadooda aqoonada maamul ma dhaafisneen macadkii lagu baran jiray kombiyuutarada iyo businesska ee ku yilay institute ku yilay magaalada Muqdisho dowladda soo shaqeeyay nidaamka dawliga ah ay qaana maahan waa ka muuqata aqoon darrada siyaasadeed iyo hogaamineed ee dadka Soomaaliyeed halka ay kula kufeen waad garan kartaa taas waxay marag ku tahay saacid oo ahaa ninka ugu qabow ugu khilaafay Soomaaliya ayay maanta islaafeen marka ma sii socon kartaa su'aasha la isweydiin karo waxay tahay ma sii socon kartaa kooxdii dam jadiid caqliyadoodii iyo cabqariyadoodii ay taageerayeen mukhaabaraadka qaran mise Janaayo 2014 ayay kusoo afjarmi doonaa tusaale ahaan haligii maxkamadahii ay dalka ka talinayeen kooxda dam jadiid waxay ku khalqaaliyeen xoogagii maxaakiimta in la weeraro ururka al-islaax waxaa ka fiiday sheekh xasan daahir aweys way ku khalqaaliyeen waayo maxaakiimtu waxay yidhahdeen ma weerareen marka caqliyada dam jadiid halkaasay markii hore waxay u taageereen maxkamada waxay ahaayeen dan siyaasadeed iyo aqoon darro iyo hamuur ay u qabeen awoodda waayo maxkamadaha inay kusoo dhex dhuuntaan birin maantana waxa weeye meesha ay yaalaan waa la garanayaa saacid oo ahaa ninka ugu qabow oo ra-iisul wasaare soo mara Soomaaliya uguna dulqaadka badan ayay maanta ishaystaan marka ciyigii waa ka baryay ayay u muuqataa khilaafkanina
وخلاف سود الدجينية إن دولة وحسن الشيخ هي ما حد كرمود كويين هلكا جناية وحل جديدة والجناية مقارنة سوى سيدة فيها عاوي لحدي خطوة أساسية الدولة من الواحد وشيخ حسن الشيخ عاوي بلغات كيسي عاوي دعاية الصومالي جنال هاي الدولة وحكاوة دقيقة إياها بعض وحاصل بني الله صبيا فعشان الدنيا عوي جنوري محا حليا الحسن الشيخ وهاك deegaanada Puntland ay joogto sidee looga arkaa khilaafka iminka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wax xiriir lama lahan dawladda federaalka Puntland shantii agoos ay xiriirka u jaxsay dawladda Puntland marka way daawanayaan waxay ka mid yihiin kooxahaas daawanaya waxa ka socda sida Soomaaliya ee hardanka siyaasadeed